habartii ducdeediyo dagalkay ku noolay daruuruhu ku hooreen dadka wada helmoodo daad wararac bay tidhi misna talada kuma darin inuu duub abaar iyo gobol lagu darleefiyo degmo lagu haraadiyo darxumooyin muuqdaan deegaanada Soomaalidu maahmaahda marka ay gabyayaan ari iyo iskinba xoolaha reermiyiga Soomaalidu u dhaqdo iyo siday u kala jecel yihiin markaynu u fiirsano waxaan ogaanaynaa dhadigoodka iyo laboodka in ay dhadigoodka jecel yihiin waxay jecel yihiin hashu inay dhasho intii ay qurbac dhali lahayd saxu inuu weel dhalo intii uu dibi dhali lahaa sidoo inay waxan dhasho intii ay orgi dhali lahayd laxduna ay neel dhasho intii ay wan dhali lahayd sababta in la gartaana ma cuslo oo waxay daaran tahay tirada guud ee xoolaha qoysku leeyahay iyo caanaha ay ka maalaan oo kordha mar walba oo dhadiga xiriyaha ugu jiraana uu kordho ganacsiga xoolo dhoofinta intii aanay Soomaalidu baran waa 50 sano muddo aan sidaa uga sii badnayn awrta dibida waranka iyo orgida wax weyn laguma fali jirin in badan oo ka mid ahayna reeraha leh intay ku dhex gabowdo ayay waada madar alla isaga baqtiyay jirtay waa run oo way qalan jireen wayna radan jireen hase ahaatee tirada joogta ayaa goor walba waxay ka badnayd tirada uu qoysku u baahan yahay sidaa daraadeed xilliyada abaaraha iyo biyowaaga waxay reer miyigu ku mintiraan xoolaha kuwooda dhadiga ah badbaadintooda hasha saaca rida iyo laxda ayay biyo iyo baadba u buriyaan maalinta xeel iyaga ayay hormariyaan jeer ay wadxaana laboodku dalka ma soo galo weylaha iyo ariga doonka ah wixii uu jiilaalku jilciyo aroor dheer uma kaxeeyaan sida dadka ayaa haama loogu soo dhaamiyaa halka la degan yahay baana biyaha loogu keenaa laguna waraabiyaa xilligaas oo kale dan kama ay yeeshaan dibida iyo orgidu inay oon u go'aan haddii sabeenaha iyo ceesaamuhu ay u soo doogaan oo xilli roobaad ay naftu ugu sinto arrintaa ku saabsan reer miyiga Soomaalidu siday xoolahooda u kala jecel yihiin waxaa inoo sii iftiimin karaysa maahmaahdii ahayd dibiga doolood dhagihiisu waxsan bay maqlaan indhihiisu sama arkaan oo talow maxaa loola jeedaa waxa la yidhi maalinta ay kalan tahay oo beri oo kale la shubi doono habeenka ka horeeya lo'du waa isku mid oo dhadigood iyo labood looma kala sooco waayeelka iyo dhalinyaraduba waxay ku hawshoon yihiin aroorinteeda iyo ururinta agabkii lagu shubi lahaa dar wadaan iyo dawlis intaba rag iyo haweenba lo'da beri goor hore hala arooriyo ayay isku gubaabiyaan taasoo ah oraah uu dibigu jecel yahay habeenkaasna dhagihiisa ku soo noqnoqota kolkaas buu ileen lo'da waa ku jiraaye isna farxaa waaga berigiisana sugi waaya ha yeeshee barqadii kolka ceelka la tago ayuu xandhoof dib u liqaa lo'da darka la gal markuu maago ayuu wax kale la kulmaa kaalinka iyo agihiisaba looma ogolaado haddii uu ku soo dhowaadana sida dugaaggii baa looga yureeyaa kolba sax baa biyaha loogu yeeryeeraa isagana waa laga celiyaa bur weyn bay kurayadu ku hor joogaan markuu soo qamaamana geeska ayay badugaha kaga dhigaan isaga oo weli la geeska raacayo ayaa wixii dhadiga la rakaadaa oo qabaal loo buuxiyey kolba lagu soo duwaa goor uu oon la gologolay biyihii ceelkana aan wadaan quriga ku harin ayaa usha laga daayaa dabadeedna isaga iyo dacda ayaa loo kala tagaa weli isaga oo haraadan ama qaraaca ayuu lo'dii uu la soo arooray iska dabagalaa lana fulaa kolka wixii uu xalay maqlaayay iyo maanta wixii uu arkay soo kaaf iyo kala dheeri maaha mahmaahdaas dibiga doolood waxaa 74kii gabay dheer oo uu tiriye ku darsaday gabayaaga caanka ah ee la yidhaahdo Cabdulqaadir Xisi Siyaad oo yamyam lagu naanayso gabaygaas oo wariyo ku magacaaban iyo weliba laba kale oo ay isku mar soo baxeen waxay xambaarsanayeen dhaliil xoog leh iyo canaan uu u jeedinayay xukuumaddii kacaanka loo yiqiin ee xilligaas Soomaaliya ka talin jirtay sidoo gabayga ka mid ah ayuu gabayaagu isaga oo magaca bulshaweynta ku hadlaaya wuxuu kaga cawday ballanqaadyadii faraha iyo quruxda badnaa ee madaxdu ay ummadda dhagaha ugu sugi jirtay hase ahaatee ay waxayada ka hirgeli jireen dibigii doolood ama dibigii wardheer isaga oo dadweynaha ku simaya ayuu yamyam yiri dibigii wardheer wuu maqlaa weli wanaaggii waxyeelada darkana wuu arkaa tan iyo waaqiisa weylaha lo'dii uma dihna oo waa allow maqane waxaruhu mareegtii dabkay kula dhex waasheene faras wagaradkiisii go'aan weli ku joognaaye gogashii wariiriga badnayd waa ku hurudnayd waa tahay indergaradka waayaha nolosha u dhun daloola mooyee dabaalka maalintaas ladane wuxuu moodaa nin kaleba inuu la mid yahay markuu dhergaba wuxuu u maleeyaa dad oo idil inay xaloosha u wada buuxdo kulaylka midicda iyo dhaxanta dayradhaafyada gabaad uu ka galo kolkuu isku hubsado ayay la noqotaa cid dibad ku hooyataay inaanay ifkaba saarayn waxaa ka dhacdhici weyda isba waa ka faraxsane dadka qaarkiis waxa ay la ilgo'an yihiin ee ay la murugoonayaan
ninka uu garaadkiisu caynkaa yahay waxa uu soomaalida xusuusiyaa sheeko waa hore baxday oo lagala haray murti isaga oo kale loogu mahmaaho waxay ku sheekeeyaan xilli abaar gaagmareebta ahi ay geyga wada saabatay ayaa hogal aad u biyeysanay waxay si wacan ugu dul hoostay jees keligii meel deganaa iyo galabgaabkii ruumanka ay xooluhu ugu maydhacdaan waxay ahayd daruur aan meel kale ku di'in markii ay biyo dhigtayna aan soo noqon hase ahaatee jeeskaasi isagu wuu ku naalooday oo xoolihii baa si wacan ugu waraabay meel walbana xaleed bay ka buuxsadeen dabadeedna kolkuu waagii baryey ayaa waxaa dadkii u soo hor toostay baa la yidhi duqdii reerka u weynayd waxay aragtay dhowr jidhaamood oo ay biyuhu ceegaagaan kolkaasba inta reereen la kala badatay iyadoon is-ogeyn waxaa rabbi ka keenay meel waliba daadwararac allow mahaddaa oo ay ula jeeday dad dhammaantii in xalay roob u da'ay saakana xaleedda meel walba waran lagu wada ildoogsanayo mahmaada iyo sheekadeeda ayaa 1980kii waxay ku soo dhacday oo tiifta uu tiriye ku darsaday hal abuurkii la oran jiray cabdi iidaan faarax waxay ahayd silsiladii maanso ee deelay la baxday xilligii ay socotay silsiladaas oo hal abuuro badani ay isaga halcelinayeen arrimaha dalka guud ahaan gaar ahaanna qabyaaladda iyo siyaabihii ay u saamaysay nolosha siyaasadeed iyo midda bulsho ee qaranka hal abuuradaas qaar ka mid ah oo ay kala aragti ahaayeen ayuu cabdi ku eedeeyey hantida ay iyagu haystaan inay ka indhatirtay dadweynaha faraha badan ee darxumada iyo dandarrada ku nool gobollada dalkana meel walba ku baahsan waxa uu kala mid dhigay islaantii inta roobku keligeed u da'ay u malaysay cid kasta oo kalena inuu u da'ay markaas buu yidhi habartii docdeediiyo dagalkay ku noolay daruuruhu ku hooreen dadka wada helmoodoo daad wararac bay tidhi misna talada kuma darin inuu duub abaar iyo gobol lagu darleefiyo degmo lagu haraadiyo darxumooyin muuqdaan dadku ku nool u badan tahay danyartiiyo shaqaaluhu daasad garow ah gadan karin mala talada kuma darin waase dumare yeelkeed buur isla mahmaadaas islaanta ayaa waxaa jirta isna ku darsaday hal abuurka caanka ah ee la yidhaahdo mustafa shar cilmi taas ka sokow wuxuu soo qaatay labada maahmahood ee kale ah carab qoyani hadal ma daaye iyo maroodigu takarta saaran ma arkee ka kale midda saaran buu arkaa kolkaas buu saddexdoodiiba maanse u rogay oo yidhi dadku waxay yidhaahdaan dibna aan xishoon iyo afka labada daan lihi ileen hadal ma daayaan wax kaloo ay ku darayeen maroodigu ma daawado dusha waxa ka fuushana midka kale duqsiga kora ayuunbuu dareemaa wax kaloo ay ku darayeen haba roob ku da'aya waxay dunida moodaa in barwaaqo laga degay dhegaystayaal barnaamijkeennii fanka iyo suugaantu maanta halkaa haynoo jooga waa inoo toddobaadka dambe iyo mid isaga la mid ah odaygu waxbana kuma tooraado haddii afadiisa iyo carruurta u kacda aanay noqon kuwa talooyinkiisa dhaga u leh danaha reerka indha u leh wixii kolba soo gacan galana aan ku dheeline dhaqaaleeya laba barbaar baa isku mar tabar gala dabadeed way guursanaadoo mid walba wuxuu dhistaa inan uu isagu doortay ama ay dar kaleba kula taliyeen xil culus baa fuula ee labada mid waliba wuxuu u xusul duubaa sidii uu ku yeelan lahaa hanti isaga u gaara oo maantaa la jooga reerka cusubi uu naf ka dhigto berri ka maalinna uu u baxsado muddo kadib labadooda mid walba carruur baa u dhalata carruur sida ay u korinayaan hadday wiilal yihiinna barbaarha noqda hadday gabdha yihiinna ahaada gashaantimo timatidcan oo guurdoona maalintaas bay labadaa reer ee isku waaga udubkooda la taagay kala hormaraan siday u badan tahay hodantooyo iyo baraare ayaa waxaa ku naalooda labada ninkii oori firfircoon intuu rabbi ku beegay uu haddana warasada xilkaska ah ka siiyey isaga ayaa bulaala oo hanti adduuna ay u gacan gashaa halka uu kii kale ka luufluufo oo sida la qabo saboolnimadu ay sad u noqoto macnahaas ayay u jeedeen soomaalidii hore markii ay suugaanta ku soo dareen hawraarta ah ilaahay ninkuu xoola la maaga dadkeed buu siiyaa oo ah maamaha isku xidhaysa dadaalka odayga reerka iyo karti iyo xilkasnimaba xubnaha qoyskiisu kolba tayada ay leeyihiin gabay ay mahmahdaasi ka dhex muuqato ayaan ku arkay buug lagu magacaabo guur iyo garaad oo uu qoray gabayaaga la yidhaahdo khaliif ashkir diini xoosh kaas oo ku saabsan hiddaha guurka soomaalida iyo weliba sheekooyin curis ah oo isla arrintaa ku lug leh gabay uu qoraalku ka yeersiinayo samatar cawl oo jirayaasha sheekooyinka buugga ka mid ah ayaa waxaa ku jira ninkii maal ilaahay la rabo inuu muhiibsiiyo marka hore dadkeed buu helaa waana loo marage inta maxamed iyo maryan iyo muuse ii korayo ama ay mataanaha yaryar maqasha raacayso muxsir maahi ee taajir aan muuqan baan ahay waa tahay taa ka gudub dhaqanka soomaalida markaynu dib u eegno
waayeelnimadu waxay astaan u tahay garaad dheeri ah iyo waayo aragnimo kolkii ay murugto loo baxsado waxay odhan jireen nin da'yari intuu geed ka booda ayuu tala ka boodaa hase ahaatee odaygu xaajada waa u miiriyaa oo hadba tii lagu meel mari karo ayaa loogu irkadaa dhacdooyin badan ayuu soo maray abwaano doora ayuu la soo fadhiistay guuldarro iyo foolxumadeed ayuu u soo joogay siyaarihii lagu furdaamiyena goobjoog buu u ahaa wanaagga nabadda laga helo ayuu garanayaa ba'a colaadda loogu tago ayuu yaqaan haddii laga dhagaystana labada midba waxa laga dhaxlo ayaa u hubban wixii ku soo kordhaaba waxay xusuusiyaan wax hore oo uu soo arkay markaasuu ka saadaalin karaa dhacdo waliba shar iyo khayr wixii ay soo jiidi karayso amaba laga filan karo waayeelku bulshada hareerihiisa ku dhaqan waayaheeda waa qof wax badan ka og wax soo ka sii og yahay waxa isaga naftiisa ku soo kordha ama ka dhaca cudur iyo caafimaadba siduu shalay ahaa iyo maanta sida uu yahay waa qof isbarbar dhigi kara oo dhalaariba wixii ay kala dhacday ogaan kara inkastoo aanu aqoon dhaba u yeelan karin maalinta uu uun aakhira ku tirsami doono haddana isaga iyo xabaaluhu inta ay isu jiraan waa qof malayn kara sidaas baa waxaa loogu maahmaahay nin weyne wadkii waa yaqaan oo loola jeedo waayeelku cudurka uu u dhiman doono cudurrada inuu ka garan karo ama guud ahaanba qofka da'da weyne halka ay dhibaatada uga iman karto inuu si wacan u saadaalin karo mahmaadaas iyada ah ayaa hees uu curiyey oo miisaanka dhaantada ku samaysan waxa u adeegsaday hal abuurka caanka ee la yidhaahdo axmed saleebaan bidde waxay ahayd hees ku jirtay riwaayad 1962 uu axmed sameeyey oo ay soomaalidu aad u daawatay lana oran jiray alla aamin ma iiso maxamed yuusuf iyo saynab xaaji cali oo baxsan ku magac dheer baryahaasna iyagu ka mid ahaa hormuudyadii heesta casriga ah ee soomaaliyeed ayaa riwaayaddaas xidig iyo xidig ka ahaa heesta ay mahmaahdu ka muuqatana waxay si daran doora isugu halcelinayeen mar ay niyaddoodu sii kala jeeday oo maxamed uu daacadnimada saynab ka shakisanaa aadna uu u qawadsanaa baxsan oo markaa inta nabsi soo riday heshiis doon ah ayaa waxay odhanaysaa markuu wakhtigiisu wacan yahay wuxuu is yidhaa adaa wadanoo dadkuba waaye waa ilaawi jiree ma waa raagtay baa warkaaya kolkaas buu maxamedna ku gacan sayrayaa una sheegayaa inuu yahay nin weyn oo garan kara cidda waxyeelaynaysa oo iyada qudheeda ah wuxuu ugu jawaabayaa nin weyn waa og yahay wadkii dilayo inaad weecataan warkaagii hele ee waraystay ku ogaaday halkaaad ku waddo haddaad wiiqislayd wax maan noqon qaybtii 16aad oo ka mid ah barnaamijyadii taxanaha mahmaahda soomaalida waxayna ku saabsan tahay mahmaahda qaybteeda dugaagga iyo duurjoogta loo saarayo mahmaahda soomaalida waxaa ka mid ah qayb dhan oo dugaagga iyo duurjoogta loo saarayo inay iyagu curiyeenna lagu been hawaaso amaba la isugu sheekeeyo waxaynu maqalnaa iyada oo laleeyahay waraabaa wuxuu yidhi abeesaa waxay tidhi biciid baa wuxuu yidhi gorayaa waxay tidhi dawacaa waxay tidhi iyo wax lamid ah waa la og yahay dugaagga iyo duurjoogtu inaanay aadanaha ku war ahayn oo aanay af soomaaliga ku hadli karin iska daa inay ku mahmaahaane ujeeddadusa waxay tahay in murti lagula baxo waxna la isku tusaaleeyo waana tabsuugaaneed aan soomaalida ku ekaynin ummado badan ay la wadaagto mar walba oo mahmaahdan la adeegsanayo sheeko gaaban oo gobol xaara ayaa laga horraysiiyaa dabadeedna bahalka loo saarinayo magaciisa iyo mahmaahdii afka loogu tiray ayaa la israaciyaa si loo rumaystana soomaalidu kolka ay sheekadaas oo kale marinayso waxay tixgelisaa bahalka mahmaahda iskale dabeecaddiisa waxyaabaha ka suuroobi kara iyo fikradaha guud ee ay bulshadu ka qabto haddaba dugaagga iyo duurjoogta ay soomaalidu murtida kula baxdo waxaa malahayga ugu mahmaah badan dhurwaaga oo ah bahalka reer miyiga soomaalida ay isugu badiyaan wuxuu ka mid yahay dugaagga tirada yar ee hilibka mooye aan oomati kale ku hambaasin geedahana doog iyo abaartoona aan afka saarin sidaa darteed waa bahal mar walba xoolaha reer miyiga isha ku haya oo eebbaweyne saami ugu daray noloshiisuna ay ku xidhan tahay abaariga aaranba kama fogaado halka ay xooluhu daaqaan ama habeenkii lagu xeraysto had iyo jeerna isaga iyo xoolo raacatada waa u halgan mar uu isagu raayo oo uu neef kala tago iyo mar ay iyagu raayaanoo ay waxadooda ka ceshadaan isu dhowaanshaha dhurwaaga iyo soomaalida reer miyiga ah waxaa ka abuurmay fikrada bahalkaa ku saabsan oo maanka bulshadeennii hore ku samaysmay giddigoodba waa fikrado xuma mooye aan wax wanaaga lagu arag
xagga dhaqankiisa waxay ku tilmaamaan inuu yahay wax ay gunnima dilootay oo hunguri xumo diyahaal joogta ah iyo quusli'iba lagu ibtileeyey dhaqankaas aysan jeclayn waxay garab dhigaan dhaqan gobeed ay ku sheegaan libaaxa oo si walba dhurwaaga uga dabeecad gedisan marka hore inuu dhab u gaajooda mooye libaaxu xoolaha iskama laayo halka uu dhurwaagu markii ay u dagtaanba uu ka warjeefo marka labaad haddii uu ka dhergo libaaxu raqda kuma dul nagaadee waa ka tagaa wuxuuna u daayaa dugaagga kale ee duleedada halka uu wax ku cunaayo ka soo dhaguugaya dhurwaaguse xataa haddii uu dhergo ilbaha hoos yaal kama ag dhaqaaqo raxantiisa mooye cid kale wax ugama oggolaado ilaa uu lafaha jajabsadana kama dul tago marka saddexaad neef uu isagu disha mooye libaaxu baktiga wax ma moodo umana hawoodo dhurwaaguse waa xaabqaad aan xalaal iyo bakti u kala socnayn oo wixii uu ka soo kor dhacaba gaaja u qabato calooshana ka buuxsada dhaqankaas gunnimo ka sokow xagga abuurtana dhurwaagu soomaalida waa u astaan foolxumo socodkiisa midabkiisa iyo lugihiisuba waa la siloon yihiin ragga kii foolxumo loo qarinayana magaciisa ayay kiisa ku laraanoo kolkaas bay hebel dhurwaa ku naanaysaan aqoonta dheer ee soomaalidu ay dhurwaaga u leedahay waxaynu ka garan karaynaa magacyada iyo naanaysaha tirada badan ee ay u taqaan inta aanu hubno waxa uu af soomaaliga ku leeyahay labada magac ee kale ah dhurwaa iyo waraabe waxaase u dheer naanayso 9 gaaraya oo dhammaantood tilmaan ka bixinaya sida uu u abuuran yahay kuwaasoo kale ah qaaryare ciida dambas qaar xabaal uruq dhaylo ciida muruqla lug dhammaajo cageey huluul iyo cumar lug laawe naanaysahaas kuwa ka mid ah ayaa laga helayaa qaar ka tirsan hawlaas dhaqameedyada ay bulshadu wada taqaan iyo maansadii hore labadaba taana waxaynu ku tusaaleyn karaynaa saddexdan kale ah cageey huluul iyo cumar lug laawe naanaysta cageey bal u fiirso shiilaalka kolkay tahay oo xoolaha qoyska reer miyiga ahi ay nacfi yareeyaan ayay hooyadu caanaha carruurta u tashiishaa waxay ku dadaashaa inay si siman ugu qaybiso xerada ayay gashaa iyada oo sidata haruubadii ay ariga ku lisi lahayd yaryarkuna meel aan oodafada ka fogayn ayay isa soo tubaan in fadhida iyo in taaganba waxay kala hororsadaan kolba haruubka ay soo taagto ee ay caanuhu ku jiraan isku soo dabeecad ma ahee mid carruurta ka mid ah ayaa kolkaa afka qaylo ku shubta oo oohin iyo dhulgalgalasho isku dara isaga oo hooya caana isii ku celcelinaya ma wuxuu ka baqayaa inay ilowdo mahamun gorgor buu leeyahay oo sidaaniba waa u dabeecad mise gaajo xun baa ka dhawaajinaysa waxa ugu wacanba cabbaar hadday iska dhagatirto ayay marka dambe xaggiisa u soo jeensataa oo habaar aan hoosta jirin oo gacal cun ah inta ku tuurto ku tidhaahdaa iga aamus caana kuuma hayee cantaliigso oo cagay ka bariye dhegaystayaal tanina waa qaybtii 17aad taxanihii mahmahda soomaalida barnaamijyadii ku saabsanaa barnaamijkii midkan ka horreeyey waxaad ku maqasheen gobolli ku saabsan mahmahaha soomaalida qaybtooda dugaagga iyo duurjoogta afka loogu tiro ee inta loo saariyo murtida lagula baxo isla barnaamijkaas waxaan ku faahfaahiyey dabeecadaha uu leeyahay dhurwaaga oo aan ku tilmaamay inuu yahay dugaagga nooca soomaalida reer miyiga ah ay isugu badiyaan sidoo kale waxaan ku soo qaaday aqoonta dheer ee ay bulshada soomaalidu u leedahay bahalkaas anshigiisa iyo magacyada ay u bixisay haddaba hadduunbay la tahay inay habboon tahay inaan soo bandhigo mahmaaha dhowr ah oo lagu been hawaaso in dhurwaaga laga maqlay iyo iyaga oo kooban sheekooyinkii ay ku baxeen sidii aan isla barnaamijkaas hore ku soo xusay waa bahal hilibka oo keliya ku nool oo haba yaraatee aan oon kale ku hambaasin markuu inta dhasho dhulka ka kaco ilaa marka uu baktiyana wuxuu ku raad joogaa xoolo dagan oo ciddii lahayd ay u wadeecaysay gobollada ay degto meelo ka mida waxay soomaalidu dhurwaaga u qaybisaa 3 nooc ee kale ah hintifaa oo ah midka ariga habeenkii markay tahay xerada ugu dhaca qormahaalig oo ah midka geela laaya iyo aylacataatir oo ah harag iyo maqaar wixii uu arko dagaalada laga guuro midka ka unuunufa sidaa darteed ma aha in lala yaabo mar walba mahmaaha dhurwaaga laga sheegaa haddii ay ku wareegaan halganka joogtada ah ee uu ugu jiro helitaanka hilib uu ku noolaado mahmaahda koowaad dhurwaagu xilligii la joogaba intaas wuxuu jafayaa dhul qodaxdu sariiran tahay dhul dhagax iyo dul miiran ah dhul cagaag badan oo cidiyaha ka dhilqaya dubkana ka murxiya hase ahaatee uma fadhiisto saacidina uma maqna umana xil qabtee jarmaado iyo boqoole caraabo iyo guuraba waxa uu ku qasban yahay inuu socod ku jiro
فوق iyo fiidba wuxuu u tafaxaydan yahay jiid iyo cadiin sidoo hilib ku heli lahaa si aanay nafta u kala dhaqaaqin haddaba maalin maalmaha adduunka mid ah ayaa waxa ugaasi u soo kalahay baa la yiri dhurwaa duqa oo toddobaadkii hore oo idil ku sari waayay adduun ruubad ah oo kuleyl badan ayuu dhex qabsanaya suudiga daraadiisna kolba cagaha ayuu ciida kala boodaya barqaaraacdii kolkay tahay ayuu daalay tallaababa wuu qaadi kari waayay dabadeedna inuu nasto ayuu tashigii kaga dhammaaday geed quraca harkii intuu ku leexday ayuu iska helaan heray wax yar kadibna cagihiisii ayuu hoos u eegay maxaa dhiig ka da'aya maxaa qodax ku mudan faraha suurashiisa afarta ah iyo cirbahaba inta dhulka la dhigo meel waliba way haaraysaa xubin waliba way dhaawacan tahay kolkaas buu hamiyey wuxuu naftiisa kula sheekaystay inuu ku rayn lahaa haddii uu heli lahaa saydhada iyo cagaaga wax ka xigsada oo sida dadka kaba loogu toli lahaa haddana wuu isla yaabay wuxuu garan waayay sida ay fikradaniba ugu soo dhacday wuxuu xusuustay inuu dhurwaa yahay oo cagihiisa dhiigga ka da'aya aan cidina dan iyo daarad ka lahayn dabadeedna isaga oo ku raalli ah waxa uu yahayna aqoonsan ayuu iska heleeshay oo inta hortiisa u dhaqaaqay ku tiraabay haddii kaba la ii tolana waa alxamdulilaahi haddii aan la ii tolinna rabbilcaalamiin oo noqotay mahmaha uu xusuusto wax inuu helo uu ku fiicnaan lahaa qof loo diiday ama laga hagraday isla markaasna naftiisa ku dhiirigelinaya waxaas uu waayay inaanu u rambasin dantiisana aanu uga harin mahmahda labaad sida laga yaabo dad badan inay u haystaan arrintu maaha oo dhurwaagu mar walba geesi maaha xoolaha haddii uu soo weeraro reer miyigu way kula diriraan wayna ka dhacsadaan haddii lagu maahmaahay libaaxna inaan aqoon baa lax ka rita dhurwaagu waa ka duwan yahay oo lax iyo riba hadduu wax kala tago way ka dhigtaan dabadeedna halgaad iyo dhagax siday ugu marayaan ayay dhulowgeedaala uga soo haraan isaga oo diyahaalkii uu qabay daalna ugu kordhay taas inay run tahayna waxay soomaalidu daliil uga dhigataa dhurwaagii ariga mayracanaya u soo gaatamay ee ida iyo riyaba markii ay dareemeen ay dhagax yidhaahdeen cagahana ay wax ka dayeen dhinacii uu arigu u diday ayuu isna u afra qaaday hase ahaatee wax yar kadibba si kadisa ayuu kabcilla isu taagay oo hortiisa ku dhaygagay talow maxaa u muuqday waa lax shilis oo arigii diray ka hadhay dhinaciisana u soo cararaysa intuu yaabay oo amankaag dhameeyey ayuu si degdega dhabarka u jeediyey oo jihadii uu ka yimi u faranduleeyey iyada oo laxdiina ay ka daba jaran tahay welibana ay ciyayso show isagu ma ogee laxdu way indhala'dahay show arigeedii meel uu u diday iyo meel uu ka jiraba waruma hayso show markii uu u soo dhowaadayba jaanqaadkiisa ayay dareentay show arigii ay ku jirtay neef ka mid ah ayay u qaadatay oo dhurwaaga ay daba cararayso wehel bay la ka dhiganaysaa wuxuu ka baxsado iyana ay daba orodaba markii dambe oo malaha uu laba geedii ka soo fogaaday ayuu gadaal eegay masalaxdiiba ma muuqato oo goor hore ayayba isaga hadhay welise wuu amankaagsan yahay wuuna ku garleeyahay maxaa yeelay araggiisa xoolo ka carara mooye weligii iyo allihii xoole xaggiisa u soo carara waa u maanta galabtaasna orodkii dheeraa weli isaga oo la xuurtaysan ayuu yidhi war madayladan cunis lahaabaa aniga calaf iga dayday oo ku maahmaaho qof waxtar iyo waxsiin kaleba ka filaayay qof kale oo uu u hanweynaa hase ahaatee ku hungoobay welibana isagii wax doonayay wax la biday halkii wax laga siin lahaana wax laga weydiistay mahmaada saddexaad maalin kale waxay ku sheekeeyeen dhurwaa aad u gaajaysan baa wuxuu soo galay kayn uu markaa ka hor dhowr jeer ka loogsaday kayn dayrtii hore uu ka liibaanay oo xoolo la baylihiyey uu marba neef kala tegey maantase meel loola kacayba ari iyo lo' tooni kama muuqdaan inkastuu qashku isqabsaday oo geed hoose iyo geed saraba ay dhirtu hamashowday isaga oo tuuxaynaya meelihii uu sabeynaha iyo ceesaamaha ku layn jiray ayaa geeda dhaadheer oo hortiisa sariira sharqani uga baxday mar qura ayay helidiila cusubay ku soo korodhay indhaha ayuu galka ka soo bixiyey oo miciyihii isku lisay wuxuu isu qaabiyey waxaa sharqamay inuu haabto soona qabsado isaga oo aan hurdin buuriyoon sharqantii iyo shababaxdii u baxday buu u dhegtaayey afarta jaho ayuu midba mar indhaha ku fiiqi bal inay bidhaan dagani u muuqato hase ahaatee wax yar kadib bay himiladiisii hoos u soo dhacday hankiisii baa dabaysha raacay show sharqantii u baxday waxay ahayd raxan daayeer ah oo geedaha hareeriga ah midba mid uga boodaysa kama sadayriyeene miyuu gaari karaa